Annyeonghaseyo Yorobun. Kusoo dhawaada channelkayga. Please channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe dheh si aad ula socoto casharada kale ee aan soo gudbin doono. So maanta waxaynu ka hadli doonaa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee luqadda Kooriyaanka. Sida loo dhiso xarfaha Kooriyaanka, syllable blocks, waxa la dhaho badjim iyo double badjim. Aan ku bilaawno syllable blocks, xarfaha isku dhafan. Kooriyaanku ma loo qoro xarfaha si toos ah oo dherer ah sida Ingiriiska iyo Soomaaliga. Halkii ay xarfo u qori lahaayeen, waxay isugu ururiyaan xarfo yaryar oo ku dhisan mid ama laba shaqale iyo shibanayaal iyagoo sameynaya blocks sanduuqyo. Tusaale, Ingiriisku cat, xarafka cat waxaa loo qoraa qaab isku xiga balse Kooriyaanka haddii aan tusaale ka siiyasne waa ka. Ka wuxuu hal dabaq hal syllable. Syllable waxaa la dhahaa hal dabaq. So syllable kan ka wuxuu ku jiraa hal block ayuu ku jiraa. So haddii aan ku darno shibane saddexaad oo dambe ah, waxaad hele block ka kooban 3 xarfood. Tusaale, an looma qorin si isku tax ah looma qorin waxaa loo qoray qaab oo sanduuq ah ayaa loo qoray an. Haddaba balooga Kooriyaanku wuxuu noqon karaa inta midkood. Mid walba ka siiye tusaale: ga, go, kwa, gan, mul, kwan, tak, ik, kwam. Okay, aynu u gudubno badjim. Badjim micnihiisu waa xarafka hoosta la dhigo, waa shibanaha ugu dambeeya ee hoose ee balowga Kooriyaanka kadib markuu dhammaado shaqalka. Aan isbarbar dhigno laba shaqal ee isku eg. Midna badjim ayuu leeyahay, midna badjim ma laho. Okay, pa. Dhawaaqu wuxuu ku dhammaaday a, badjim ma laho. Yacni xaraf kale hoos yaala ma laho. Okay, pap. Badjim ayuu leeyahay waana b. B softi ayaana lagu dhawaaqaa. B-daas hoose ayaa waxaa la dhahaa badjim. Xaraf walba hoosta la dhigo ayaa badjim la dhahaa. Tusaalooyin dheeraad ah: pap, nun, mul, chip, sarang. Haddii aynu ka saarno badjimka ereyga nun, waxaan helaynaa nu, kaasoo micnihiisu isbedelaya gabi ahaanba. Okay, su'aal muhiim ah: balowga Kooriyaanka ah ma yeelan karaa in ka badan hal badjim? Jawaabtu waa ha. Marmar waxaa jira laba shibanayaal oo isku badjim ah. Okay, taasoo loo yaqaano double badjim. Maxaa loo yaqaanaa double badjim? Tusaale, gab, tak. Laakiin sida caadiga hal badjima ugu badan. Okay, so aynu u gudubno badjim rules. Badjimku wuxuu leeyahay rules. Okay, 7 rules ayuu leeyahay. G, k, double g waxaa lagu dhawaaqaa marka uu badjim yahay k softi ah, ka oo softi ah. Tusaale, check, puok. Nu iyada waxaa lagu dhawaaqaa na'deeda caadiga balse na macnaha oo aan la adkeyneynin. Tusaale, san. Okay, du, tu, su, chu iyo chi. Shantaas waxaa lagu dhawaaqaa t softi ah. Tusaale, nat, ot. Okay, xarfahaas walba aad aragtid markuu hoosta yaalo oo badjim uu yahay ku dhawaaq t softi ah. Okay, inu gudubno xarafka xiga lu. Lu waxaa loogu dhawaaqaa xarafkeedii caadiga ahaa lu, ra. Markuu badjim yahay la lagu dhawaaqaa la. Tusaale, nal, mul. Okay, m aan u gudubno mu caadi m caadi lagu dhawaaqaa. Okay, tusaale, pam. Okay, P for book and B for pen. Pu iyo P, labada B waxaa lagu dhawaaqaa B for pen oo softi ah, B softi ah. Tusaale, pap. Ma dhehaysid pap. Okay,
aynu u gudubno xarafka xigo. Xarafkan hore ayaan igu soo sheegay marka ugu horeeyo xarafkan Kuuriyaanka marka la bilaabayo waa inuu shibano ku bilowdaa. Okay, asiga marka waa shibanaha yani vowel marka uu ku bilaabmayo kan ayaa laga hormarinaa. Okay, dhawaaqna ma laho marka ugu horeeyo. Hadda laakiin markuu batshim yahay ugu dambeeyo ng lagu dhawaaqmaa. Tusaale pang pang. Okay, isku day inaad ku dhawaaqdid. Pap pam pang pap pam pang. Okay, inuu gudubno double badjim asigana wuxuu leeyahay dhawaq mid ayaa laga tagayaa, waa xarfo laba ah. Badjim markuu ka hadda aan soo barano wuxuu yahay badjim hal xaraf ah. Okay, double badjim waxaa waaye badjim oo laba xarfo leh, laba consonant oo isku imaatay. Okay, waa 11dan waxaa laga rabaa inaad yani 3 ka mid ah haddii aad fahamtid, inta kale waa ay fududee. Okay, kooxdan oo ugu horeyso markii aad ku aragtid luqadda Kuuriyaanka waxaad dhawaaqaysaa xarfaha ugu horeeya oo kaliya. maxaa ku dhahay xarfaha ugu horeeya oo kaliya, yani laba shibane waaye, laba shibanaha ugu horeeya ayaa ku dhawaaqaysaa. lu i hu lu aa ku dhawaaqay, lu i fu lu aa ku dhawaaqay. Okay, lu i tu lu aa ku dhawaaqay, lu i su lu aa ku dhawaaqay, ku i su ku aa ku dhawaaqay, nu i hi nu aa ku dhawaaqay, nu i chi nu aa ku dhawaaqay, pi i su pi aa ku dhawaaqay. Okay, 3dan kalo waxaad ku dhawaaqaysaa xarafka labaad. kuwan hadda kuwa ugu horeeya ku dhawaaqaysa. Okay, kuwan hadda waxaa ku dhawaaqay laakiin yani xarafka labaad ku dhawaaqay. lu i ku aa ku dhawaaqay, lu i mu aa ku dhawaaqay, lu i bu aa ku dhawaaqay. Okay, si kuugu fududaato 3dan daahibdiisa waxa kale soo heray waxa ku dhawaaqaysaa oo kaliya xarfaha ugu horeeya oo kaliya ayaad ku dhawaaqay. Okay, 3dan markaad aragtid waxa ku dhawaaqay yani xarafka labaad ku dhawaaqay. waxa kale ku soo heray kuwan ah waxa ku dhawaaqay xarafka ugu horeeya. Okay, tusaale aan ka siiyo. Okay, shil nok an. dhawaaqyada labadan waa isku mid balse qorista ay ku kala duwan yihiin. nol hal kab kol. Okay, 3dan kala dhawaaqoodu tusaale aan ka siiyo 3danne nak sam up. Okay, markii yani haddii aad aragtid badjim ku dhawaado oo tusaale badjim oo ku dhamaado vowel shaqal oo ku dhamaade. Okay, waxa ku xigo shaqal kale, shaqalkaasoo ka bilaabanayo xarf shibane yani shibane. tusaale aan ku siisa u fahamtid. Okay, anja ja'dan waxay u wareeganaysaa shibanahan meel ku jiro. hore ayaan igu sheegay shibanahan markuu yani ugu horeeyo laguma dhawaaqayo, hoos markuu yaalo ng lagu dhawaaqaa. Okay, an haduu jiid waxay u boodaysaa meeshan shibanaha uu yaalo anja. Okay, tusaalooyin kala ku siiyo kabshi. Okay, kuwan hadda awal markii oo shibanahan haddii laga reebi lahay xarfahan haddii laga reebi lahay waxay ku dhawaaqmi lahaayeen kab nok iyo ik. Okay, waxaa lagu daray iya mid walba lagu daray eyo waa lagu daray. Okay, wuxuu u booday xarafka iyo double badjimku mid ka mid ah wuxuu u boodaa shaqal shibanahan meesha uu yaalo ayuu u boodaa. tusaale kabshi asta wuxuu u booday meesha shibanaha uu yaalo kabshi ee noqonay. Okay, nokshi ilkoyo. Okay, markii uu yani badjimku uu ku xigo shibanahaas uu ahayn shibanihii oo yani oo dhawaaqa aan lahayn, hadduu uu ka bilowdo waxaad ugu dhawaaqaysaa sidaan. tusaalooyin ku siiyo. Okay, kuwii hadda maxaan soo dhahnay opshi aan dhehna, hadda way ku duwan tahay kan
ta sa'dan waa qarinaysaa sida aan qaacidooyinka hore nigu siiyo op ugu dhawaaqay okay ta opta sa'da waa ka tagay nukta nukta giga qaadanay ra'da waa ka tagay okay samta 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 la'da waa ka tagay okay chomta chomta anta anta ja'da waa ka tagay okay sidaad u fahamtay kuwan waxa waaye double badjimka wixii aan ku soo siiyay xifdi okay aynu isticmaalno qaab jumlad ahaan okay yogi anjaso nakto mogoyo yogi anjaso nakto mogoyo yogi anjaso nakto mogoyo 철민 철민 maada waxay u booday meesha xarafka shibanaha oo dhawaaqiisa yani shibanaha lagu dhawaaqaynin ay u boodo okay 넓은 사람하고 늙은 사람이 책을 읽어요. 오케이 midmid aa u kala dhigo 젊은 사람하고 늙은 사람이 책을 읽어요. 젊은 사람하고 늙은 사람이 책을 읽어요. iri la'da markay la'da waxay u boodaysaa shibanahaas meesha uu yaalo ay u booday so markay la'daas shaqalla dhaxda u gasho waxay u dhawaaqmay sida ra okay iri ra ay u dhawaaqmay iri manhaso hada way booday okay xarafka shibanaha booskiisa ay u booday iri manhaso che salmi 없습니다. 일이 많아서 제 삶이 없습니다. cashirkeena halkan ayuu noogu dhamaaday ku celceli cashirkan aad yani confusing way waad ku wareereysaa ku celceli ruleska aan ku siiyeyna si fiican ugu celceli okay aad ay u mahadsantihiin daabashadiina please channelka subscribe si aad u daawata casharada kale ee soo socda inta aynu ku kulmi doonaa cashirkan ee cashirka kale ku xigo mac salaamo